kayagaan ku dhargaynaa dhudhunkayagiyo waan ku dhaaqsanaynaa daabu hawlgelaynaa waan ku dhaaqsanaynaa daabu hawlgelaynaa dhididkayagaan dheefsanaynaa dhididkayagaan dheefsanaynaa waxaan joognaa Dhuusamareeb magaalo madaxda Galmudug halkan maanta waxaan isugu nimi inaanu bandhigaan beeraleyda ah aan wax ka su'aalno oo wax ka aragno wasiirka oo nala jooga wasiir waxaa noo muuqda dalagyo kala duwan oo qofkii indhaha mariya uu isleeyahay mushabeelooyinka midkood baad joogtaa mise jubbada waxaa maxagga suuqa inta ka keenteen mise waa wax idin baxay oo aad u sheegaysaan dadka in Galmudug ay tahay gobolada wax soo saarka beeraha hadda meel wanaagsan ka gaaray una sii socda toor aad u mahadsan tahay horta aroortii hore shala subax ilaa waxaan shaqaynaynay ilaa saaka gelinkii hore shaqaynaynay dhammaan waxaan booqanay beeraha ku yaala Gurceel laga soo bilaabo ilaa Caabudwaaq ilaa meesha la yiraahdo Cadaado sida aad la socotana saaka halkan waxa ka furmaya tababarkii oo beeraleyda oo ilaa 25 beeraley oo beeraha effective-ka wax soo saarka bilaabay ay ka soo qayb galayeen dhammaan sida aad arkaysana qaarna anagoo joogna ayaan soo gurnay oo gacanteena aan ku soo gurnay qaarna beeraleydii ayaa hore u keenay oo beerahoodii ka soo guray wad arkaysaa dalagyadan kala duwan halkan maanta aan ku soo bandhigayno ayaa kamid ah marka waa beeraleydii Galmudug ku yiilay qaybaheeda kala duwan wax soo saarkoodii gaar ahaan beeraha waliba la waraabiyo maadaama xilligan lagu jiro xilli jiilaal ah beeraha haysta biyo ayaa laga soo guray wasiir waxa halkan nooga muuqda dalagyo aan isleenahay loogama baran Galmudug iyo Puntland toona iyo dhinacaanba wixii hiiraan ka soo ah waxa noo muuqda moos waxa kale noo muuqda bambeelmadii oo shabeelooyinka caan ku ah waxa leedahay waxaan oo dhan waxay ka baxayaan hadda waliba meel fog laga keenina Dhuusamareeb gudaheeda يا أجارك qaar badan oo kamid ah runtii shalay laftada goobjoogad oo ahayd markiina nala fowdeynaya waxa la yiraahdaa mooska Galmudug ka bax dhagaxa ku jira marka waa tijaabinaysaa hadii Ilaahay yiraahdo in dhagax ku jiro iyo inuu moos fiican yahay laakiin waxaan ku cadeynayaa ku xaqiijinayaa waxaan oo dhan waa wax soo saarkii beeraleydeena oo runtii dadaalay oo ceelal qotay oo biyo helay oo beerahoodii waraabsaday oo wax soo saaray waliba suuqa maanta keena suuqyada waaweyn ee magaalooyinka keena ee ku iibiyo wasiir waxa ku faraxsanahay in halkan ay yeelaan qarihii mooski bambeelmadii baradhadii basbaaski muxuu ahaa basashi waliba halkan digirihii oo kala duwan galeyda haruurkii qoolihii waa kan hadda يا قول ومالك يقول رسول أركبه قوله واكن يعبتي بهذا تانوء يعبتي واتن مركا وح إذن كم قن ولا إذن كوجفاني كرا استديا ذا كلام جيران مر هدي أدو ذا هاي ستة وحنا ديرتينه قولها اسمه كلام وصل كم بحين بلقي يا با يعبتوا با والله آذان أقدر سنة هاي وحرجينا إننا وباهي فربنا قبنا ولي وحنا بالله ويانا هاي laakiin waxaan hubnaa in hadii beeraleydina intaan ay maanta awoodeen wad arkaysa iskaashatooyinkii maanta inay halkan ku soo bandhigeen wax soo saarkoodii waxaan aaminsanahay inaan u baahannahay waxyaabaha naga dhiman caqabadaha jira oo meesha ka jira oo ugu horeysa biyo la'aantu ay ugu horeyso qalabka oo ugu horeeyaan maxaa la yiraahdaa helitaanka beeraleydu inay helaan in garab lagu siiyo inay wax soo saartaan laakiin waxaan dhihi karnaa waa guul bilow ah oo la gaaran dhihi karnaa runtii aniga laftirkeyga oo wasiir ah oo joogay hadda sanadka afaraad hadda ii socdo farxad weyn ay ii tahay maalintii ugu horeysay ama sanadkii ugu horeeyay heerkan hadda lama taagnayn waxaad dareemaysaa marka in isbedelo waaweyn oo ay jiraan in juhdi fara badan la geliyay in beeraleydu runtii intaan ay ku dadaaleen inta dhimanna waxaan rajaynaynaa in waxaad kaloo jira oo xaqiiqo ah xilligii abaaraha daran ay dhaceen ee webigu guray ee biyo la'aantu ay dhacday in gaalkacyo
laga qaadayo xira dhagaxley meesha la yiraahdo in khudaar laga qaaday oo diyaarad la saaray oo Muqdisho la geeyay ayaan ognahay oo maxaa la yiraahdaa dadaalka heerkaas uu gaaray marka maanta lama dhigi karo hadda waad ogtiino dhulku wuxuu u qaybsamaa Soomaaliya markii la yiraahdo dhul waraaba oo webiyo leh iyo dhul oo rain fed ah roob suga ah annaga waxaan dhigi karnaa roob sugidda waan ka baxnay maanta waxaan maraynaa inaan biyaheena soo saarano laakiin waa heer bilaabo waxaan rajaynaynaa inaan helno maalgelin waxaan rajaynaynaa inaan helno in beeraleydana laga saacido inay maadaama heerkan ay soo gaareen oo maanta heerkan ay taagan yihiin in xirfadoodana la kordhiyo maalgelintoodana la kordhiyo helitaankii biyahooda la kordhiyo qalabkii ay ku shaqaysan lahaayeen loo kordhiyo sumihii iyo cayayaanka waxay kula diri lahaayeen loo kordhiyo waxyaabahaas oo dhan waxay keeni doonaan marka wax soo saar muuqda inay Galmudug maxaa la yiraahdaa ay soo bandhigto oo sidaan ka sii ballaaran faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee intii aanu kormeeraynay state-kan ama maamul goboleedkan waxa kamid ahaa in dhulka korkiisa uusan biyo lahayn oo abaari ka jirto laakiin waxaad moodid inayba wabi yihiin ay hoos socdaan beeraha aanu shalay tagnay waxaanu ku soo aragnay ceelo loo qoday oo 7 mitir lagu gaarayo 7 kaliya lagu gaarayo waxaad qiyaastaa marka 7daas biyaha lagu gaarayo soo fakanaya in biyo la'aani ayaan ka jirin hadii loo helo dadka gacanta lagu qodi karaa 7 mitir wax haday tahayba marka waxa weeyaan wax soo saarka hadii loo soo jeesto waxaan qabnaa wabigiinu korma maray hoos buu maraa in laga faa'iideysan karo caqabadaha aanu la kulannay intii aanu wada tashiga la sameeynay dhowrkii jeer aan ku soo noqnoqonay waxa kamid ah si xun uu isticmaalka sumaha oo kale sumaha ayaa waxay ku hayaan wax aad iyo aad u baahan waxa jira sumo la keeno wasiirkuna waa noo faahfaahin doonaa oo loo isticmaalo xoolaha oo kale tii la marin jiray baa waxa hadda laga yeelaa oo naloo sheegay in loo qaso oo la cabsiyo xoolo badan ay ku dhamaadeen marka daawo loogu talagalay in korka iyo shilinta laga taabsiyo iyo waxyaabaha kore in loo qaso oo la cabsiyo waxa jirta dawooyin la isku daro aan islahayn oo qof inta gacanta ku qasay gacantii oo dhan ay muruxday suxun oo isticmaalka sumaha oo la keenayo iyagoo dhacay ay loo keenayo ama deeq ama la soo iibsanayo waxa waxyaabaha ay u baahan tahay in sharci laga soo saaro la xadido la tababaro dadkana lagu wacyi geliyo wasiir tan iyo intii aanu shalay isla soconay waxaana loo sheegay sumo qaar la keenay maxaa ka xasuusan kartaa dhibaatooyinka sumahaas iyo noocyada ay kala yihiin iyo waxa aad ku aragtay bismillaahir rahmaanir rahiim runtii waa arin aad looga naxo ay ahayd waxay wasaaradda hadda xarunteeda cusub oo la sameeynayo ayaan kulay ku soo bandhigi doonaa hadii Ilaahay yiraahdo hadda ku haynaa in la qaybiyay sumo waqtigooda uu ka dhinaa hal bil iyo qaar dhacay intaba in la qaybiyo beeraleyda loo qaybiyay oo aan saambaladoodii iyo waxoodii soo qaadnay oo ay qaybiyeen hay'adaha samafal ay qaybiyeen arintaasna runtii waa arin aad looga naxo waa arin deegaanka khatar ku ah waxaan kaloo aragnay sumo oo la qaybiyay oo dareere ah oo loogu talagalay inay dareere ahaato laakiin markii la rabo in la isticmaalo kala degtay oo noqotay budo iyo biyo noqotay oo kala guurtay oo iyaduna sida maxaa la yiraahdaa saas ku noqotay wax aan la isticmaali karin marka waxaan rajaynaynaa wasaaraduna ka fikiraysaa in sun kasta ee la keenayo gobolka ay noqoto mid la soo tijaabiyo marka hore wasaaradda la keeno dadka khibrada oo maanta loo tababaray iyo shaqada loo tababarayay iyo dadka hore u soo bartay oo jooga deegaanka iyaguna shaqada tababarka ka faa'iideystay inaan sameeyno meel lagu hubiyo sumaha noocaas oo kala ah waxaan uga digaynaa hay'adaha oo qaybinaya waxyaabaha deegaankana dhibka ku ah beeraleyda dhib ku ah nafta bini aadamka dhib ku ah cudurro fara badan iyo kansar iyo waxyaabo fara badan loo keeni kara dalaggeena iyo beeraheena baabi'in kara inay ka waantoobaan waxaan rajaynaynaa iyadana waxaan ka soo saari doonaa markii sharcigan hadda shalay loo tababarayay dawladda federaalka ee wado la baasgareeyo oo baarlamaanka federaalka la marsiiyo sidoo kale waxaan marsiin doonaa golaha wasiirada Galmudug waxaan marsiin doonaa baarlamaanka dawlad goboleedka Galmudug waxaan ka soo saari doonaa sharciyo waxaan rajaynayaa marka arinta in aad looga digtoonaado beeraleyduna markasta ay dawo helaan ama ay helaan maxaa la yiraahdaa cayayaan dilaha ay arkaan inay soo wargeliyaan wasaaradda si looga hubiyo looga jeegareeyo hay'adaha waxaan ugu baaqaynaa in dawo aan la soo marsiinin wasaaradda inaan loo qaybinin beeraleyda oo dhibaato loogu geysan
wasiir annaga oo haddaba tix raacayna waanada iyo waxqabadka dowladda federaalka ah wasiirka federaalka ee beeraha iyo waraabka Saciid waxaanu idinku numi inaanu idinla qaybsano wax alla wixii wacyigelina iyo aragti ah isagoo ka duulahaya wasaaradda in ay ka soo kabsato dhibaatooyinkii loo geystay 30 sano ee wasaaraddu ay tabar yarayd oo hadda la joogo waqti la rabo in la xadido oo la xakameeyo waxyeelada ay ka mid yihiin wax alla wixii dib u dhac u keeni kara beeraha waxaanu aragnay oo naloo sheegay hadda intaanu meelaha maraynay kamida tusaale ahaan halkan in miro qara ah la keenay loo qaybiyay miraha markii ay qarahaasi uu bislaaday ay dib hadana u beereen wuu macaanaa wuu fiicnaa laakiin beerashadii dambe ay mirtiina ka weynaatay kii hore isagiina isku bedelay inuu qaraar yahay marka wuxuuna baabi'iyay abuuradii kale oo wadanka ka jiray waxyaabaha noocaas oo kala ah oo ama ganacsi lagu keenayo ama lagu keenayo deeq waxa weeyaan waa wax ay dawladda federaalka beeraha iyo waraabku ay rabto inay digniinaheeda iyo waxqabadkeeda ay ku salayso loona baahan yahay sida uu wasiirku u sheegay in laga soo saaro muxuu ahaa sharciyo loo hoggaansami doona qaybta abuurka iyo qaybta sumaha waa dilaa weeyaan sumuhu hadda sida loo isticmaalayo kuwa hadda la sheegayo oo dadka kuwa isku dila Jubbaland bay ka dhacday dad isku dilay oo gabari ayaydeed ay si soo ku sumaysay waxa jira kuwa hadda halkan loo ka sheegay oo inta loo qasay dhurwa neef inta cunay dadkii oo dhan hadana ay qasheen oo la wada wadaagay 7 isbitaal loo dhigay waxyaabo fara badan oo waxa jira dhibaatooyinkaas kalifay in hadda dawladda federaalka iyadoo kaashanaysa dawlad goboleedyada wasiiradu shirarka ay isugu yimaadaan hadda la rabo in la xakameeyo oo la yareeyo oo si sharci ah iyo maamul wanaag ah loo qabto waxaan haddaba cadeynaynaa annagu haddii aan nahay khubarada beeraha ay ka socota timi galmudug inayan ahayn hilib iyo caano inayan ahayn wixii lagu tirin jiray oo ahaa beera ma laha xoolaha dhinacooda talaalka ha loo badiyo waxaan hadda la arkayo waa wax shalay beeraha ka soo go'ay iyadoo waliba jiilaal jiro dalagan aad arkaysaan waa dalagyadii soo go'ay ee banaanka yaala la rabo marka in la hormariyo marka waxay taa tusaale u tahay wasiir waxa la wixii loo qabanayo muxuu ahaa wax soo saarka idinku inaad qaybta koowaadba ka jirtaan la rabo waliba in la dhiirigeliyo si ayagu horumarintooda kuwa hormaray ay uga daba tagaan oo ay u hormaraan waxaan qiraynaa waxa la wixii xagga ka baxa inay ka bixi karaan waxa ka maqan oo soo aragnay cambaha ka baxa cambo badan baa ku jira oo ka baxa zaytuun oo ka baxaanu soo aragnay olivo oo adduunka ugu qaalisan baa ka baxda oo soo arkay rumaan baa ka baxa babaygi iima muuqdo oo aan beeraha dhexdooda hadda ku soo aragnay geeduhu saaran yahay laakiin gadaasheenaba hadda beerta waa ku yaala marka waxa weeyaan galmudug waa gobol beereed iyo xoolaba intaba isku ah gobolo waxa jira beeraha kaliya laakiin gobolka galmudug hadda state-ka wuxuu noqday gobolada ugu horeeya oo waliba ku dhiiranaya hadda in ay wax soo saarkaada soo badiyaan waxa sharaf noo ahayd shalay arday ku soo bartay dibadda inaanu beertiisa tagnay oo nu ku aragnay isagii inuu maalgelin ku samaysanayo manala jooga bare waa manala jooga bare waa kan waa aqoonyahan dibadda inta ku soo bartay la soo noqday cilmigiisii rabana in uu dadka beeraleyda kalena uu waxbaro isagana uu tuso in loo baahan yahay wadanka in wax laga qabsado waxa ka jira uu noo sheegay gudoomiyaha iskaashatooyinka ilaa 28 iskaashato inay jiraan oo midkiiba uu ka kooban yahay 50 ilaa 60 qoys oo beeraley ah marka waad qiyaasi kartaa tirada inta ay la ekaan karto oo numberkuna sii korayo ayna jiraan dad aan wali iskaashatooyinka ka mid noqonin shaqaynahayaan marka waxa weeyaan waxaan idinku amaanayaa inaad u soo jeesataan dalkiina iyo dhulkiina inaad wax kala soo baxdaan oo idinku isku filaataan wixii kale oo ama aqoonta ah in tababaro la idin furo ama ah in la idin ka xakameeyo oo la idin ka yareeyo dhibaatooyinka ay idinku hayso sumaha iyo abuurka iyadana wasiirka federaalka Saciid Ciid waa uu ballan qaaday in uu xeerar ka soo saari doono sharcina ka soo saari doono si marka ay u yaraato loo joojiyo wax aan sharci iyo
risiid lahayn inay waddankan ama soo geli karaan ama la isticmaali karo marka wasiir maxay kula muuqataa mustaqbalka galmudug wasaaradda beeraha iyo xoolaha bismillaahi raxmaani raxiim runtii doctor aad u mahadsan tahay waxa laga yaabaa sida anaga hal dhibaataan haysato ugu weyn oo runtii ah bini aadamku waxay ay aaminsan yihiin ama waxa la been fakatrunimo gaarto been mar hore baxday oo dadkii kala gaartay oo meys ah oo xaqiiqo aan jirin ah ayaa baxday oo ah galmudug inaysan beeraha ku habboonayn taa ayaa waxay nagu aheeda dhaawac weyn oo markasta saameyn nagu lahaa in xataa dadkii galmudug qaarkood aysan aaminsaneyn dhulkaani inuu dhul beereed yahay uusan aaminsanayn taasi waxay aheeday qodobka koowaad oo maanta aan aaminsanahay in laga baxay oo maanta ay soo noqonayaan qurba joogti ay soo noqon ganacsatadii laftirkoodii ay maal gashanayaan beerahoodii aan dareemayn in horumar weyn uu ka jiro dadka fikirkoodina uu isbedelay annaga laftirkeenna oo mas'uuliyiintii wasaaradda ah aniga shalay waxyaabo aan aaminsanaa jiray oo hadda basashaan oo kale ma aaminsanayn in meeshaan basal lagu beero laakiin markaan tagnay in dad la tijaabiyay ee la beeray ee la soo saaray wax weyn la noqoto runtii waxa kamid ahayd baradhada oo aaminsanayn hadda in Soomaaliya oo dhan xataa inaan lagu beeri karin aan aaminsanayn waxyaabahaas oo dhan waxay keenayeen waxyaabaha runtii fikirka khaldan ah ee dadku ay aamineen taasuna waxay ahayd runtii in aad loola dagaalamo wacyigelin fara badan la sameeyo waad u jeedaan marka bambeelmadii iyo wax walba iyo maxaa la yiraahdaa inay meeshii ka baxayaan runtii waa u mahad celinaynaa Barre iyo Xaaji Cali iyo dad rag odayaasha ah ee beerahan sameeyay ee ku dhiiraday runtii iyaga laftirkooda ay noo sheegeen markay magaalada marayaan oo yiraahdaan beertan u socdo la yaabi jiray oo la dhihi jiray waalan la dhihi jiray laakiin maanta xaqiiqadooda miiskan ay saaran tahay wasaaradda federaalka marxaati ay ka tahay deeq bixiyaasha marxaati ay ka yihiin wasaaradda beeraha galmudug farxad ay u tahay marka waxaan rajaynaynaa mustaqbalka dhow in arintaasi ay ku imaan doono isbedel weyn oo aan la qari karin oo runtii aan dood la gali karin waxa laga yaabaa hadda ka horeeyo dooda la gelinayo waxa la dhahayay anaga doodayno afka ka sheegaynay laakiin maanta ka bacad inay noqon doonto itus oo itaabsi sida maanta way u bilaabatay sanad kasta waa soo bandhigi doonaa wax soo saarkeena waana ku marqata qaadi doonaa madaxda kala duwan ee dawladda Soomaaliyeed hadii Ilaahay yiraahdo madaxa food security and livelihood ayaa nala socda bal isagana intii uu kormeerka uu nala socday uu arkay gobolkan state-kan galmudug state maxaad ku tilmaami kartaa fikradihii laga haystay iyo waxa aan ku aragnay intii aan joognay adigoo soo koobay bismillaahir rahmaanir rahiim dr cali aad buu mahadsan yahay magacaygu waa maxamuud yaasiin cartan waxaan ahay agaasimaha sugnaanta cuntada wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowladda federaalka Soomaaliya waxa maanta sharaf ah in aan ka soo qayb galo bandhiga beeraha ee dowlad goboleedka galmudug oo lagu qabanayo caasimadda Dhuusamareb sida halkan idinka muuqataba waa aragtaan maxaan ku raadayay waxa la soo bandhigay oo ah runtii isugu jira qudaar cuntooyinkii daruuriga ahaa oo qutulyumka loo isticmaalay oo ay digrihi kamid yihiin galeedii ay kamid tahay masagadii ay ka wada mid yihiin aniga oo runtii mar walba magaranaysa ku howlan sidii aan u horumarin lahayn sugnaanta cuntada dalka waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta galmudug uu ka baxo cuntooyinkii stable foodka ahaa loo yaqaan ama qutul daruuriga ahaa oo la rabay in laga helo miis kasta oo Soomaaliyeed laga helo taasoo kor u qaadaysa in cuntadii sugnaanta cuntada kor loo qaado in la gaaro isku filaansho dhinaca cuntada la gaaro runtii waa wax aad loogu farxo waxaan arintan mahadada iska leh beeralayda galmudug oo ku dadaalay inay magaranaysa ay beeraan dhammaan noocyadii kala duwanaa ee magaranaysa beeraha oo ay ugu horeyso hortiina waxaa la baradhadii oo la aaminsan yahay xataa in baradhada ay wadan ka bixin oo marka qaarkoodna aan badina aan ka soo dhoofsano wadannada jaarka ah laakiin aad idin muuqato in baradhada ay ka soo baxayso waxa kale oo aad idin muuqata in dhammaan qudaartii kala duwanaa ay meeshan ay ka baxayso marka beeralayda galmudug aad u muhiimsiin waa u hambalyeynaya wax soo saarkan aad ka muhiimka u ah ay soo saareen aad ugu hambalyeynaya waxaan kale oo si gaar ugu hambalyeynaya wasiirka beeraha iyo xanaanada xoolaha mudane Axmed Iblaawe oo isaguna isku dubariday iskuna hawlay sidii kor loogu qaadi lahaa
wax soo saarka beeraha aad bay taas runtii reer galmudug ugu mahadsan yihiin annaga ka federaal ahaan wasaaradda beeraha federaalka waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta dhammaan dalka Soomaaliya uu yahay lagu beeri karo dhammaan dalagyada kala duwan ee beeraha lagu beeri karo oo hadda ugu dambayso sida aragtaan galmudug oo wax walba beertay marka runtii aad baan ugu faraxsanahay waxaan rajaynaynaa in halkaas laga soo hormariyo guulna wadin rajaynaa insha Allah